baadhistaas sidii lagu daba jiray ilaa hadda waxa la aqoonsaday 5 nin. 5 nin shantiiba waa la soo xidhay. 4 waxay ku xidhan yihiin xarunta ciidanka sirdoonka qaranka. kii shanaadna wuxuu ku xidhan yahay oo shicibihi CID. caasha wixii ku kacay in gacan adag lagu qabto dadkana waxa lagu digaynaa ninkii ololeynaya toos xisbi ka tirsan oo ololeynaya ha ololeeyo ciidamadu waa dhexdhexaad iyagu iyo shaqaalaha dawladdu inay ololeeyaan ma waa ka gaar. waxaan kale oo ku wargelinaynaa qof kasta oo waqtigan adag ee lagu jiro ololaha doorashooyinka ama maalinta doorashada la gaaro cid kasto falkan oo kale ku kacda in ciidanku heegan u yahay inuu gacan adag ku qabto. ka jiraayid galabta waxaan halkan ummadda Soomaaliland ku wargelinaynaa ama uga sheegaynaa in ciidanka booliisku baadhis ku hayay oo daba joogay raggii habeen hore xaafadda Sinay iyadoo qaarkood qoryo AK wataan qaarna bistoolado xabada ka rideen qaar ka mid ahina siteen calanka huwanaayeen calanka xisbiga kulmiye. baadhistaas sidii lagu daba jiray ilaa hadda waxa la aqoonsaday 5 nin. 5 nin shantiiba waa la soo xidhay. 4 waxay ku xidhan yihiin xarunta ciidanka sirdoonka qaranka. kii shanaadna wuxuu ku xidhan yahay oo shicibihi CID hoggaanka baadhista dambiyada. waxa kaloo baadhis lagu sii wadaa bal in rag kale oo iyana hubaysnaa ama kuwa la socday ama meel kale wax ka sameeyay inay jiraan si loogu soo daro. dhammaantood waxa la horgeyn doonaa maxkamadda ciidamada oo kiis ka yeelanaysa sida ugu dhaqsaha badan. sidaa darteed waxaan ummadda ku wargelinaynaa inay horta sidaa la socdaan. waxaan kale oo ku wargelinaynaa qof kasta oo waqtigan adag ee lagu jiro ololaha doorashooyinka ama maalinta doorashada la gaaro cid kasto falkan oo kale ku kacda in ciidanku heegan u yahay inuu gacan adag ku qabto oo aan loo naxariisan ujeeddo kasta ha lahaadaan. waxaan kaloo ummadda ku wargelinaynaa ama uga digaynaa dad baad moodaa inay ka xoqayaan sheekooyinkan ama arrimahan si kale meel ka xoqayaan. xaqiiqdu waxay tahay 24 saac baa lagu ogaaday oo baadhista waa in la hubiyaa marka cidi dembi gasho. baadhis bay u baahan tahay qof bini'aadana si aan dusha loogaga dhicin la hubiyo. markii la hubiyana waa ka ciidanku gacanta ku soo dhigay. intii dambana kiis ku cadaadana waa lagu soo darayaa. booliiskuna wuxuu u taagay afcaasha wixii ku kacay in gacan adag lagu qabto dadkana waxa lagu digaynaa ninkii ololeynaya toos xisbi ka tirsan oo ololeynaya ha ololeeyo ciidamadu waa dhexdhexaad iyagu iyo shaqaalaha dawladdu inay ololeeyaan ma waa ka gaar. kuwaana sidooda loo qabanaya hadii lagu arko. dadweynahana in lagu gacan siiyo la soo sheegaan ka codsanaynaa dadka falalka ku kacaya ama isu ekaysiinaya. dhammaan bulshada inteeda kalena arrimahan inay ogaadaan booliiskana ku gacan siiyaan baan mar kale ka codsanaynaa. loo intaa ku daraya ciddii nimanka la soo xidhay habeen hore ama mar kale markay wareegaalaysanayeen qoryaha iyo bistooladaha la wareegaalaysanayeen qaarkood dabridka sameynayeen hadday cid wax ku yeeleen ciddii ay wax ku yeeleen inay timaado xafiisyada booliiska hoggaanka baadhista dambiyada ama saldhigga booliiska Axmed Dhagax inay yimaadaan sheegtaan waxyeeladii loo geystay iyadoo ujeedadu tahay in kiisaska ay galeen si dhab loogu qaado maxkamad lagu horgeeyo. waxaan kaloo ummadda mar kale ugu celinayaa cid kasta oo dad badan baa ka hadlayay meediyaha oo lahaa wax lagama qabanayo caynkan ha aragto in la soo qabtay kuwii kale ku kacana la soo qabanayo. wixii dad taa ka dhur sugayeen ha ku biyo cabaan ama ha ogaadaan gacanta booliisku inay shaqaynayso.